بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم. waxaan rabaa wax yar inaan ka iraahdo erayo aad iyo aad ii soo jiitay oo maasha Allah oo dhowr jeerna kii horena aan waxba ka dhihin kan dambana maaragtay aan aad ugu bagay ra'iisul wasaaruhu runtii maalin kasta waxyaalo dadka bulshada ka qosliya oo maaragtay ayuu soo dhigaa laakiin waa wax dhab ah oo la yiraahdo araar la yiraahdo ama waxa la yiraahdaa eragan kormar ama waxa la yiraahdaa dulmar ama adiga erayo badan baa la dhahaa noocaasa waxyaalo oo runti ah nin baa cararay nin baa dhintay uu baxsaday haddana waa dhintay waa baxsaday iyo ruux lagu soo nooleynhayo iyo erayada noocaan ah oo hadda ra'iisul wasaaraha maaragtay uu qosolka laga dhiganhayo waxaan leeyahay Soomaali weyn wax sax waaye wax sax sababtoo ah waxaad arkaysaa qof weyn oo qurux badan oo iska socda oo aan wax naf uu leeyahay aysan jirin wallaahi qalbigiisa aysan waxba ku jirin raganimo aysan ku jirin dadahanimo ay ku jirin niman iyo naagba oo alle qofkan waa qof qurux badan oo wanaagsan markuu jidka marhayo oo dhar qaba laakiin waxa markuu socdo uu waalan yahay wuxuu ka sheekeynayaa wax aan qofba ka sheekeyn mul aadan aan ka sheekeyn wax nool waxaan ka sheekeyn ku leeyahay uu iska leeyahay marka qof socda oo waalan oo weyn oo libisan muxuu dhaamaa ruux baan ku soo afuufaynaa iyo waa soo noolaynaynaa iyo hadda dadkii haddii la soo nooleynhayo oo ra'iisul wasaaruhu soo nooleynhayo waxaan is leeyahay maasha Allah bal haddana qodobada oo dadka ku soo nooleynhayo waxaan rabi lahaa inuu noo soo koobo aniguse waxaan ku darsanhayaa ra'iisul wasaare aad iyo aad baad erayada aad leedahay aniga kolleyba waa qanciyeen oo ah qof dhintay baa baxsaday iyo qof haddii alku ruux lagu soo nooleynhayo qof baxsaday oo qof dhintay oo baxsaday waxa waaye nin cidiisii ka tagay oo 30 sano aan la arkin oo meel haddii Ilaahay ku reey lagu sheega jirin oo aan nooleyn oo aan dhiman oo dhimasho cidiisa ku tirisay ee haddana maanta hadduu rabo xamar kula jooga hadduu rabo gobol Hargeysa kula jooga hadduu rabo kula jooga maaragtay Boosaaso iyo maaragtay Kismaayo kula jooga ee aan meel u socday meel ka socda aqoon muxuu waa baxsaday waa dhaamaa muxuu waa baxsaday waa dhintay waa baxsaday muxuu dhaamaa ruux lagu soo nooleynhayaa hadday jirto waa ereyga kaliya ugu dambeeyo ugu wanaagsan dadkii naftoodii in la soo nooleeyo oo haddii maaragtay lagu soo nooleeyo nabad lagu soo nooleeyo anigu waxaan leeyahay waa midda ugu fiican ra'iisul wasaare dadka waxa lagu soo nooleyn karaa waa nabad iyo in la tababaro oo wacyigelin loo sameeyo iyo in maaragtay haddii Ilaahay ku roon yahay waxa lagu soo nooleyn karaa tababarka in wacyigelin lagu sameeyo iyo in meel dhaqan celina la geeyo boqolaal qof oo maantay aan ruux lahayn ee la soo nooleyn karaa jira aan ruux lahayn ruux male waa dhinteen mar horey tageen war fiiriya Soomaali weynay nin aan cidiisii ka warqabin oo aan awlaad lahayn oo hadduu awlaad leeyahay aan awlaadiisii ka warqabin oo waalidkiisii ka warqabin oo meel cilaah oo hawda qamra iyo jaad kula jira ama guri jajaba qamra iyo hawd kula jira maxaa nolol u haystaa أنا بحاول هل ضرنت ودي وأرمام بحسوق تقنو سوء ذيك هيا قبل أذيك يا كسوق عن جارية دبا أنا حنوسنا ما أنا كشقة أو ما نسعن هذا وحنوسنا قوادي سد حديكو أنتي قاضي عبارة مركز السعودية حيتر والله وعي هذا مركز مدة جوكت له قرآن ساري أي إفراحي أنت يا إكاني نايا هبينك أفر ساعة مركز كوكينا مياد نوجين ما أنا وجين يتري قوادي وحيتر ناقتين واركا جورجين واركا dadka guriga joogani qof kasta wax u geeyay waa arkay tir banaanka taa waxa waxba ma arko qofku waa ku dhacay inaha gabdhaha wala sixir alashan macna waxba ma arkay tiri hal waqri wax lagu aqri ma naqana haya gabar dhan oo hadii la ku reeyay maanta barakoon lahayd oo waxtar lahayd oo sharaf badnaan lahayd oo inta la qaatay guri la geystay fiiri guri inta la geystaa lagu adeeganayaa
meelaha waa aragteen dhibaatada ka socoto la sheegayo lagu adeeganaya maskaxdeedii la qalday naag dhan baabuurka mana iskula hadlin mana iskugu gacan qaadin sida ay daraad ay ka sheegaysa ma jirto markaan degnayo baabuurkaas aan ka degnayo lugaha marshabiyeedka aan saarnay markaas hadal bilaabtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala idaalacana yaa bilaab maxaad aniga nafs ahaantayda bilaabay maxaad ku xanaaqsaneed baawur saarnay inta baawurkii lagala degay yaa nin wuxuu raba iskaga samaynaya adduunyada noocaana waa adduunyada aan la yaabnay waay yaa adduunyada aan la yaabnay waay nin cunug yaroo saqiira oo naagtiisu dhashay wuxuu raba ku samaynayo cunug yaroo saqiira oo cunug kale wuxuu raba ku samaynayo aan leenahay maxay tahay ra'iisul wasaare dadka wixii qaldan oo dadka tahluukeynayana xabis ha lagu guro wixii kalena oo inta la xabiso haddana tababar ha loo sameeyo wixii kalena ha la geeyo meelaha lagu dhaqan celiyo dadku waa soo noolaanayaan ruuxdaas waa soo noolaanaysaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxyaalaha ra'iisul wasaaraha ka hadlayo oo runtiisa Soomaaliya barbaa dumay noloshii baa ka duntay aqligii baa ka dumay maskaxdii baa ka duntay in badan oo ayagoo iska socda waxay rabaan iska sheegayaan xataa jidka markay marayaan aad ka naxaysid nin dhaxda u xirantoo qurux badan ama naag dhaxda u xirantoo qurux badan oo jidka markay marayaan waxay sheegayaan aadan garanayn baa iska jira ra'iisul wasaare khayr badan Allah ku siiyo waan kuu duceynayaa halkani waa idaacada dadka walwaalan oo maalin walba qaarna dhaqan celin gee qaarna xabis gee qaarna haddii ilaahay kuu roon yahay hala wacyigelin ha loo sameeyo sidaas ayaa dadku ku soo noolaan karaa insha allahu walaasha kula hadlaysa waa Dictoray Safiin insha allahu soo dhawaada Soomaali weynay halkan waa xarunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada walaasha in la hadlaysa waa Dictoray Safiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkani waa idaacada dadka walwaalan oo maalin walba